Shariif Sheekh Axmed 3 sano iyo bar oo ay xaaladdu aad u adkeyd ayuu Soomaaliya xukumayay. Waxa uu ahaa madaxweyne ku meel gaar ah. Markii lagu wareejinayay xukunka dalka, waxa badi Muqdisho haystay kooxda Al-Shabaab oo la aaminsan yahay in ay xilligaas ahayd mid haysata awood midda ugu sareysa. Si kasta, Shariif Sheekh Axmed markii uu xilka la wareegay, waxa uu ballan qaaday in shabaab uu ka xoreyn doono magaalada Muqdisho. Waqti badan kuma qaadanin in Muqdisho uu ka xoreeyo, waxaana sanadii 2011 uu ka xoreeyay inta ugu badan magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab iyo kooxihii kale Islaamiyiinta ay isbahaysiga kula jirtay. muddo badanba waxaa ciidamada dawladdu waxay u diyaar garoobaan inay amniga wax ka qabtaan falilah alxamdu sida aad ka warhaysiin. waxaa lagu guuleystay goobo badan oo muhiim ah in gacanta la soo guriyay ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga, ay ka mid tahay warshada caanaha, ay ka mid tahay rugtii saraakiisha. sidaas oo kale magaalada Buulaxaawo oo maanta si buuxda iyaduna gacanta u soo gashay, iyo magaalada Beledweyne ay ka socdaan dagaalo xoogan iyo dadaal badan oo ka jiro. waxaan rajaynaynaa guulahaas inay sii daba joogsadaan. ummadda Soomaaliyeed marka meel ay joogaan waa ugu hambaleynaynaa guulahaas. waxaana ka codsanaynaa in taageero iyo garab istaag ay la garab joogsadaan. Sidoo kale, halkaasi kuma ekeen Shariif Sheekh Axmed oo amniga Muqdisho si aad ugu dadaalay. Waxa uu ugu dambeyn ku guuleystay in guud ahaan Muqdisho uu ka saaro Al-Shabaab dabayaaqadii sanadii 2011. intaasi kuma ekaanin, Shariif Sheekh Axmed waxa uu u gudbay gobolada ku teedsan Muqdisho ee labada Shabeelle, waxaana sanadii 2012 bilowgeedii uu ku guuleystay in degmada Afgooye iyo deegaano kale ee hoostaga uu ka xoreeyo kooxda Al-Shabaab. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa ciidamada qalabka sida waxay soo mareen maraaxil kala duwan. waxaa la socotay xilligii dawladdan oo jirtay waxaa lagu bixiyay dadaal fara badan. maantana waxay soo gaareen meel fiican. magaalada Afgooye la qabta maanta inaan la sheegi karin qof la dhacay iyo qof la dhibaateeyay. ilaaha ku mahadsan. Shariif Sheekh Axmed waxa uu si aad ah ula falgalay ciidanka xoogga dalka. waxa uu ahaa madaxweyne si aad ah ula shaqeeya ku dhex jira ciidanka tuutaha inta uu xirto fronta dagaalka kaga jira. waxaa sidoo kale Shariif Sheekh Axmed uu ahaa madaxweyne ka warqabay baahiyaha ciidanka xoogga dalka. muuqaalkan waa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. waxa uu horfadhiyaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sanadka waa 2012. waxa uu ku baaqayaa in sidiisa oo kale ay baarlamaanka xirtaan tuutaha isla markaana ay aadaan fronta dagaalka si ay ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. maantana haddee ilaahay fadligiis kuma ballansanayn inay maalin sidaana kusoo aado, laakiin ilaaha kusoo aadiyey. waa fursad fiican. marka waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto oo markii hawsheena aan dhamaysano xildhibaan kasta inuu tuutiis inta gashado qoragiisa qaato ciidanka la dhex galo. ciidanku haddii aan mataqaanaa gacan siino aan u tagnana moral ay helayaan. haddii aan ka maqnaano ay noqdaan ciidan kaligoo diriraayana dee waxaa laga yaabaa khalado badan inuu dhaco. wixii hore oo soo noqoshada ahayna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga daawoobay oo aysan soo dhici doonin, laakiin waxay u baahan yihiin taageer aad u fara badan oo dhinaciina iyo dhinaca shacabka ah. Shariif waxaa lagu xusuustaa in uu yahay shakhsiga dagaalka ugu badan la galay kooxda Al-Shabaab, inta ugu badanna ka xoreeyay dalka. waxa uu ahaa madaxweyne nabadoon ah oo Soomaalida heshiis la ah. intii uu joogay Shariif Sheekh Axmed waxaa la xusuustaa in dagaal beeleedyo aysan dalka ka dhicin. waxa uuna sidoo kale ahaa madaxweynaha kaliya ee aan lagu tuhmin boob hanti dawladeed iyo dhul ay dawladdu leedahay. Shariif Sheekh Axmed waxa uu hadda u taagan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la aaminsan yahay in uu yahay shakhsiga kaliya ee u qalma marka loo eego waxqabadkiisa iyo hanaanka maamul ee dawladdii 3 sano iyo barka ee ku meel gaarka ahayd. waxa uu ku guuleystay in dalka uu ka saaro ku meel gaar. muddo 42 sano ku siman kadib ay dalka ka dhacdo doorasho si nabdoon ah ku dhacdo, dalkana uu ka baxo ku meel gaar. Shariif Sheekh Axmed waxa uu si nabad ah xilka ugu wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaas ka guuleystay isaga oo doorashada ku qabtay magaalada Muqdisho, gacanta ku hayay maamulka iyo hanaanka iyo awoodda dawladnimo. waxa uu gartay in si nabad ah uu xilka ku wareejiyo, waxaana la aaminsan yahay in uu yahay aabba si aad ah u aaminsan dimuqraadiyadda. xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in badankood ay diyaar u yihiin
in ay doortaan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.